رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفيدرالية الصومالية مدن حمزة عبدي برre oo ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay cutubyo ka tirsan ciidanka commandoska gorgor xooga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in looga fadhiyo sidii cadawga uga difaaci lahaayeen xuduudaha dalka ay cirka dhulka iyo sidoo kale badda. Intii ay socotay munaasabada dhaarta ayaa ciidanku waxay soo bandhigeen dowladtus iyo sidoo kale gaardis ka turjumaya tayada iyo sidoo kale xirfadda sare ee lagu carbiyay kuwaas oo loo diyaariyay inay door muhiim ah ay ka qaataan dagaalka dalka looga sifeynayo kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa xusay in qalabaynta ciidanka gorgor ay tahay astaan muujinaysa horumarka iyo tayada ciidanka qalabka sida isagoo cadeeyay in laga sugayo sidii amniga dalka ula wareegi lahaayeen marka ay baxaan ciidanka midowga Afrika. waxaa sharaf ah oo runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed karaamo u ah in dhulkii ay ka baxeen iyo goobihii ay ka baxeen ciidamada ajnabigu ee nala joogay goob ka mid ah oo ay shabaab ama khawaarij dib u qabsatay inaysan jirin oo aad idinku hanateen oo amnigeedu sugteen waa ku mahadsantihiin. waxaan rabaa idinkana inaad ogaataan waddankan wuxuu u baahan yahay in ciidankiisa xoogga dalka Soomaaliyeed amnigiisa si toos ah ula wareego xuduudihiisa sugo amnigiisa sugo cadawga uu dalkani leeyahay in laga difaaco hadday tahay cir dhul iyo bad intaba sidii aad idinkuba sheegteen waa hawl culus oo idin hor taalla. saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo taliyaha xoogga dalku ugu horeeyo waxaa saaran mas'uuliyad aad iyo aad u weyn waxaan rajaynayaa in dalkan insha Allah waqti dhow uu ku soo noqon doono majdigiisii iyo sharaftiisii iyo karaamadiisii uu lahaa mana ku soo noqonayso ilaa aan xuduudaheenna hadday tahay cir dhul bad intaba ilaa aan la wareego. Ra'iisul Wasaaraha oo u hambaliyay ciidamada dhameystay tababarka ayaa u mahadceliyay dowladda Turkiga tababarka ay siiyeen ciidanka ee muujinaya xirfadda wanaagsan ee la baraya waxaana uu xusay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta tayada tababarka iyo qalabaynta ciidanka qalabka sida si ay awood ugu yeeshaan xaqiijinta amniga dalka. walaalaheenna Turkiga oo inaga saaciday runtii in badan waxaan anigoo u mahadcelinaya mar kale haddana waxaan rajaynayaa insha Allah iskaashigan inuu sii socdo guutooyin badan oo kalena inay soo baxaan oo ay soo tababartaan oo weliba kamaan doosta danab ah si dalkan aan ula wareegna amnigeen marxalad waxaynu maraynaa transition oo dalkeenna aynu la wareegayna amnigiisa waad ogtihiin ciidamo fara badan inay dalkan joogeen ciidamadii inay hadda marka laga reebo mission kooban oo tiradoodu aad u yar tahay marka laga reebo inay dalka ka baxayaan waa ogtihiin qaybo badanina way ka baxeen. Cabdi Cali Duriye Goobjoog Muqdisho.